بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. habeen dhaweyto waxaa dhacday barnaamij dood cilmiyeed oo wuxuu ku saabsan yahay xorriyadda iyo waxa ay tahay. runtii barnaamijku si fiican buu u dhacay inkasta oo uu saacadii dambe uu naga yar qalloocday oo xoogaa doodna noqday nagana marin habaabay oo meel kaleeta aaday sida inuu nala galay xuquuqaha oo kaleeto. waxyaabahaas oo dhan waa wax la fahmi karo waxaana runtii u sabab ah fahamka khaldan oo aan xorriyadda ka haysano. haddii iminka dadka la weydiiyo qof waliba waxbuu u haystaa, laakiin dadyowga fahmay haddaa weydiiso xorriyaddu waxa ay tahay waxaa laga yaabaa 100 qof haddaad ka waraysato in 100kaa qof ay isku wax ay kuugu macneeyaanin, waayo waa wax asaasiyaadka bani aadamka ka mid ah noloshiisa oo tiirar u ah. badanaana lagu barto ilmaha marka la tarbiyadaynayo oo la korinayo, kadib iskuullada lagu dhigto, kadib jaamacadaha lagu barto, kadib noloshii iyo bulshadii dhexdeedii iyo suuqii wax yaalna ahoo maaragtay wax macruufa ah oo la yaqaano. saasaa ka lifaysa in dadyowga kaleeto sida dadka reer galbeedka oo kaleeto ay aqoon fiican u leeyihiin. laakiin dhinaca muslimiinta waxaan oran karaa masaladan amase qiyamkan xorriyaddu waa shay iskaga dhex daadsan oo aysan fahmi karin oo abstract ah oo macnawi ahaan dadku aysan garan karin waxa uu yahay. ilaaba qof dhifahoo ka fekeray ama baaritaan ku sameeyey amase markuu baaritaan ku sameeyey ka fekeray ogaaday waxa ay tahay markaa practice gareeyey. arrinta ma waxaan rabaa marka horeeto inaan dib ugu noqdo. horta marka horeeto waxaan rabaa kow inaynu bal horta marka horeeto eraga qeexno, waayo qof baanba uba baahnaynba in sharaxaad loo galo oo haddii kelimadda macnaheeda uu fahmo halkaa isagu ka amba qaadi kara inuu wixii ka fekero oo ma garanaysaaye uu goorta isagu soo dhiraandhiriyo waxa ay tahay kadibna uu garto. xorriyad ereyga la yiraahdo waxaynu niri luqadda afka carabiga inooga yimi, luqadda ingiriishkana waxaa lagu yiraahdaa freedom. laba qaybood bayna leedahay oo waxay iyagu u kala yaqaaniin freedom iyo liberty oo ka timi latin. freedom waxay ka timi luqadda englishka, old englishka ayay ka timi. iyagana waynu sii kala qeexi doonaa, hadhow waynu sharaxi doonaa. laakiin alxurriya luqadda carabiga waxa weeye sideedaba waa imkaaniya, waa awood weeye qofka ku jirta. marka labaa loo kala qaybiyaa xorriyadda. labadaa loo kala qaybiyo oo ah bal midda libertyga gadaal aynu uga galle freedomka iyo middan ah xorriyadda sida loo kala qeexaa waxa ay tahay labaduba awood weeye. labadaas awoodood oo ah wax qofka ku jira, taa horta in la fahmaa fiican. xorriyaddu waa wax qofka ku jira, waa wax lagu dhasho, sida lana barto laguna dhasho. sida aynu midabka ugu dhalanno inaan madow nahay, sida aynu caddaanta ugu dhalanno inaan cad nahay, sida aynu dherarka ugu dhalanno wax DNA-deenna geneticgeennu uu wado oo ku duugan weeye. laakiin hadhow u baahan in la kala bixiyo, la waasiciyo oo ay ballaarato. diinteennana islaamkuna xaqiiqatan shayga ugu weyn oo ay ku dhisan tahay waxa weeye xorriyadda. ikhtiyaar hadda ka hadli mayo, dad baa labadaa isku khaldaa. ikhtiyaar kama hadlayo, waxa aan ka hadlayaa keliya waa xorriyad. xorriyaddu marka horta kow macnaheeda waxaa lagu fasiraa awood, waxaa kaloo lagu fasiraa dareen qofka ku jira. dareen muxuu yahay? waa wax sensi ah oo aad dareemayso oo gudahaaga ku jira wey. taa horta waa macnaha xorriyadda. awood marka muxuu yahay macnaheedu afka Soomaaliga? awood waa wax aad quwad ah oo kugu jira oo aad wax ku samayn karto, hadal ku dhihi karto, ku fikiri karto, ficil ku qaban karto, guri ku dhisi karto, hanti ku yeelan karto, baabuur ku hal abuuri karto, ku samayn karto, wax ku qaban karto. taasaa waxaa la yiraahdaa awood. awooddaasa marka waxaa la yiraahdaa xorriyad. dhinacan physicalka ah oo wax qabashadii iyo sidii qofku wuxuu qabanayay iyo jirkiisa isticmaalkiisa iyo gacmihiisii iyo waxyaabaha iyagu waa tool, waa sida dubaha oo kaleeto waxa u adeegsanayso. laakiin waxa dhabta ah, awoodda dhabta ah waa xorriyadda. waayo qof aan xor ahayn waxba ma qaban karo, ma hadli karo, ma fekeri karo, waxba ma qabsan karo. dadka Soomaaliduna arrinkan waa meelaha ay ka dhinteen. marka doodda habeenkii dhaweyta aanu yeelanay waxyaabahan isku mari weynay waxaa ka mid ah aniga waxaa kaloo lagu fasiraa dareen qofka ku jira. dareen muxuu yahay? waa wax sensi ah, waa wax sensi ah oo aad dareemayso oo gudahaaga ku jira wey.
taa horta waa macnaha xorriyadda. Awood marka muxuu yahay macnaheedu afka Soomaaliga? Awood waa wax aad quwad ah oo kugu jira oo aad wax ku samayn karto, hadal ku dhihi karto, ku fikiri. taa maxaa u daliil ah oo caddayn u ah? waxaad arkaysaa qof dhalinyaro ah aad u xoog badan, maasha allah, qof caqli la ah, wanaagsan, oo wax kasta ka taagan, inuu bes iska hurdo, iska baashaalo un raba. maxaa u sababa? sababku waxa weeye quwadda xorriyadda oo gudihiisa ku jirta baa dhimatay. fikirka baa laga guumaystaa. waxa uu doonaya inuu naftiisa u qabsado xor uma aha, wuxuu qabaa in cid kaleeto u qabato, in waalidkiisu qabto, in adeeradiisu qabtaan, in dad kaleeto u qabtaanin. isagu ma ku dhaqaaqayo inuu wixii qabsado, xor maaha. qoluu iska taageeraya, xor maaha, fikirkiisa xor maaha. gudaha daakhilka buu ka dhintay. qofku hadduu mar daakhilka ka dhinto oo xorriyaddu ay ka dhimato, uu hogaansamo oo dad u hogaansamo oo gumaysi ku dhex jiro sida aynu isku samayno, awooddan quwadda ah iyo muruqan bannaanka ah waxma taraayo. ilaa qofku uu maskaxiyan xoroobo oo xorriyaddiisa daakhilka ku jirta oo dareenka ay bannaanka u soo baxdo, uu yidhaahdo anaa wax qabsanaya. tusaale yar baan idin siinaya. in xorriyadda waxyaabaha lagu dhasho kuwa caddaynaya ah, aynu jecel lahay inaynu inagu wax qabsanaan, wax laynoo qaban. ilmuhu markuu soo gaaro 2 sano, bal tijaabi, 2 sano markuu jiro, 3 sano markuu jiro, nacnac qori u iibi, u dhiib. wuxuu isku dayayaa inuu furo. haddaad damcdo inaa u furto wuu kuu diidaya. anaa furan kara buu ku leeyahy. dabcan sida qofka weyn uma furan karo, laakiin wuu ku rafaadayaa, wuuna furayaa aakhirka. ilkuhu ku googoynaya, qaab kale u furaya, aakhirka waa kii furta. wayna ku madax adagyiin arrinkaa carruurtu, laakiin waalidku uma ogolaadaan. waa laga dafaa, waa loo furaa, waa loo dhiibaa. xorriyaddii baa laga qaadaya, wax qabsiga. yaraantaa marka ay ku soo barbaarto wuu sugayaa. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah oo taa tusaalaha u ah. ilmaad su'aal weydiinaysaa, 8 sano 9 sano jira, hooyadiis la socda ama aabihiis, magacaabaa ku leedahay, aabihiisu fiirinaya ama hooyadiisu fiirinaya. awooda kuugu jawaaba ma leh. waxaa dhimatay xorriyaddiisii. xorriyaddu marka waxay rabtaa in marka horeeto qofku horta uu ka fekero. maxay tahay xorriyad? waa awood. awooddaasi maxay tahay? anay igu jirtaa. yaa loogu talagalay inuu isticmaalo? anaa loogu talagalay inaan isticmaalo. sidee u isticmaali karaa? 2 shay waa inaan hortayda dhigo. 1, in aan u aqoonsado inaan xor ahay oo garto inta aan qof kale xorriyaddiisa dhowraayo. shayga muhiimka oo xorriyadda lagu fahmi karaana waa taa. iyo in aan dhowro xuduudaha ilaahay. laakiin wax kaleeto xorriyaddayda inayan igu qabsan karin. haddii aan ku fekero in cid kaleeto waxaa ii haysana, ciddaasa ay gumaysata. taa waa inuu qofku dareemo. haddaa xorriyadda waxaynu u kala qaadnay, qolada westernku u kala qaadaan baynu nidhi 2. freedom iyo liberty bay u kala qaadaan. freedomku waxay yidhaahdeen wax qofka laga qaadi kara maaha, oo wax qofka daakhilkiisa ku jira. tusaale ahaan waxay yidhaahdeen qofka wax walba waa laga qaadi karaa aan ka ahayn xorriyadda. maalan, qof baa la qabtay, waa la xiray, xabsigaa la geliyey. xorriyaddii jirkaa laga qaaday oo physicalka ahayd, laakiin xorriyaddii gudihiisa ku jirtay oo inarka ahayd, oo gudaha ku jirtay, daakhilka ahayd, internalka ahayd, lagama qaadin. xabsiguu buugaa ka soo qoraya, waaba qof mucaarada. fikirkiisi buu xabsiga ka faafinaya. dadkii xabsiga ku jiray buu wuxuu la wadaagaya aragtidiisii. nebi yuusuf baa ka mid ah, waa la xiray. isagoo la xiray buu wuxuu dacwo ka dhex waday xabsiga. cidna ma qaban karto xorriyadda qofka daakhilkiisa ku jirta. innaga marka taan ka dhimanay taa weye. midda daakhilka, midda qofku wax ku oran karo, hal abuur ku samayn karo, ku fekeri karo, ku hadli karo, isticmaali karo, taa weye middaan ka dhimanay oo laynaga haystaa, mana aynu dareemayno. xorriyaddan kaleeto oo iyadu nooca kale ah oo libertyga la yidhaahdo, waxa weeye qof xorriyadda freedomka ah oo internalka ah oo dareenka ah haysta, inuu qaab liberty xor ah, uu bulsho xora oo liberation ugu dhex noolaado. waa midda westernku ay isticmaalaan. marka waxay yidhaahdeen xorriyadda libertygu waxaa xukuma politikada. shuruuc baa iyada lagu fasaxaa. haddii xanibaada lagu samaynayana lagu xanibaa. haddii dadka wax loo ogolaanayana loogu ogolaadaa. waa wax caam ah oo guud oo sharcigu fasaxo. tan laakiin daakhilka ah
waxay yidhaahdeen waa shay personal ah oo qofka u gaar ah wuxuu ku fekerayo wuxuu samaynayo isagoo tan dadka uu la wadaago dhowraya. innaga marka labadu waa isaga keen khaldan yihiin. middan marka innaga libertyga ah oo bannaanka ah oo externalka ah innaga yaa xukuma weeye. ma politikadaa xukunta, ma dadkaa xukuma, ma bulshadaa xukunta? waa may. cidda keliya oo xukunta waa ilaah. haddaa cid kaleeto taa gacanta u geliso ciddaasaa ku gumaysataada doonata. waayo diinteennu iyada ayaa waxa ay qararaysaa wixii xaaraana, wixii xalaala, wixii kuu bannaan, waxaad cunayso, waxaad samayn karto. iyada halkaasaad ka eeganaysaa, diintaad ka eeganaysaa. inaad barasho u yeelato oo fahamto maxaa xorriyad diintu ii ogoshahay, halkaas iyada ka qaadanaysa. intaa iyadana waynu isla fahamnay. insha allah mawduucan hadba sidii aan fursad ugu helo waan wadi doonaa, laakiin hadda muuqaalka 12 daqiiqa ayaan kusoo koobayaa. waxaana insha allah rajaynayaa in dadku fahmo. hal eray baan rabaa inaan arrinka kusoo khulaaseeyo. sidee qofku u baran karaa xorriyadda? sidee buu u practice garayn karaa? hal qodob baa ku practice garayn kartaa oo ku fahmi kartaa. si kasta aa hadalladayda u dhegaysato ma kugu filla, mana fahmi kartid. wuxuu yahay bal muddo 7 beriya waxa aad samaysaa baraha bulshada oo kaleeto dadka xorriyaddooda dhowr. ha caayin, ha ku xadgudbin. afkaartan ugu xun haddaad aragto qof soo jeedinaya, haddayan adi xorriyaddaada kasoo horka jeedin iyo diintaada, waxba ha ku darsan. haddaa qofka wuxuu sheegayso ilaali shakhsiyaddiisa. waxan uu ka hadlay xumaantooda tilmaan, laakiin shakhsiyaddiisa ha u gafin. saasaa tahay, kanaa tahay, kanaa tahay, taariikhdiisa ha ablaablayn oo ha gelin. kow taa horta waa ku practice garayn kartaa in hadalkaaga iyo ficilkaaga iyo socodkaaga iyo dhaqdhaqaaqaaga iyo xarakaadkaaga walba 7 beri waxaad ku dadaashaa inaad dadka xorriyaddooda dhowrto, inaadan xanaaqin, dadka dhegaysato. okay, waa aragtidiisa, waa fikirkiisa, isagaasaa qaba, insaan xora weeye. aniga dembi la iga weydiin maayo khaladka uu galay. waa una seexayn kartaa, sidan waa u sheegi kartaa, aniga walaal sidan ay ila tahay waa dhihi kartaa, laakiin sharaftiisa meelaaga uga dhicin adoo aan caayin. kow taa waa ku practice garayn kartaa. arrinka kaleeto oo xorriyadda anigu jiilasha hadda jooga inay maaragtay bartaan ama fahmaan waa wax adage. waan soo jeedinayaa waxay tahay carruurta ha lagu tarbiyadayo, xorriyadda ha loo ogolaado. nacnaca ugu yaro inay furtaan ha loo ogolaado, kabaha inay xirtaan ha loo ogolaado, dharkooda inay gashan karaan ha loo ogolaado, gacmahooda inay wax ku cuni karaan ha loo ogolaado. inay xor yihiin ha la dareensiiyo, ha la baro shayga xorriyadda. adaa qabsan kara ha la yidhahdo, ha lagu dhiirigeliyo. markaa waxaa soo baxaya insaan xor ah oo wax qabsan kara, ilaahiisna caabudi kara oo ilaah addoon u noqon kara, diidina kara in la addoonsado. laakiin haddaad adigu guriga kusoo guumaysato hadhowna waa la guumaysanaya. intaasaan kaga baxaya. wabilaahi towfiiq.